بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعنا ونكسن إذا لهانتين بداوة يالكو سو دوادا ورركن هبينمو warbaahinta wareer media qodobada wararkeena aad ku maqli daawan doontaan waxa kamida iyada oo dhammaan xisbiyadii mucaaradka ay ka hadheen doorashooyinka deegaanka Soomaalida la filayo inay dhawaan ka dhacaan ayaa waxa madaxweynaha deegaankaasi Soomaalida Mustafa Cagjar uu safar ugu aanbabaxay gobolada qaar ee deegaanka Soomaalida halkaasi oo wixii ka dhacay dad badan ay dib u xasuusisay waayihii xumaa ee deegaankaasi Soomaalidu oo soo maray faahfaahin ayaana idinka haynaa dhacdooyinka laga diiwaan galiyay sidoo kale qodobada kale ee idin hayna waxa kamida Eritrea oo shaacisay in xilli roobaadka kadib ay qabsan doonaan caasimada gobolka Tigreeg ee magaalada Maqale hanjabaad culus oo ay kaga jawaabayeen Mareykanka ama ugu jawaabayeen Mareykanka iyadoo TPLF-na ay sheegtay inay qabsatay deegaanka Wareebo dagaal adagina ay weli ka soconayaan gobolkaasi Amxaarada ee dalkaasi Ethiopia intaasi daawadayaal waa qodobadan idin hayno kuwa ugu doorka roon haatan ku soo dhawaada isagii oo faahfaahsan aan ku bilownay iyadoo dhawaan ay isaga hadheen doorashooyinka la filayo in deegaanka Soomaalida ay ka dhacaan dhammaan xisbiyadii mucaaradka ahaa ee deegaankaasi Soomaalida ayaa madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Cagjar waxa uu safar ugu aanbabaxay qaar ka mid ah gobolada deegaanka oo uu socod ku soo marayay waxa ka dhacay deegaanada uu sii maray madaxweynaha ayaa waxa la sheegay in ay dib u xasuusisay dad badan waayihii qalabsanaa ee deegaankaasi Soomaalida soo maray iyo dhibaatooyinkii dadkaasi in badan ay la soo daalaadhacayeen degmada Dooboweyn ee gobolka Qorraxay ayaa ciidamo lagu fasaxay dadkii si khasab ay ugu soo dhaweeyaan madaxweynaha deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cagjar oo degmadaasi ku soo aadanaa maanta gelinkii hore sida ka muuqanaysa sawirro laga soo qaaday ayaa muujinaysa ciidamada booliiska oo budh dadka dabada kaga kaxaynaya ama budh dabada kaga wada isla markaasina safaf dhaadheer gelinaya dadka shacabka si ay qorraxda u taagnaadaan saacado badan si ay u soo dhaweeyaan madaxweynaha deegaanka Soomaalida Mustafa Cagjar dadkaasi oo budh lagaga soo saaray maqaaxiyahoodii iyo meheradahoodii ayaa lagu khasbay inay taagni ku soo dhaweeyaan madaxweynaha deegaanka Soomaalida Mustafa Cagjar sidii uu horeyba u sameyn jiray madaxweynihii deegaanka Cabdi Maxamuud Cumar marka laga yimaado dadka khasabka qorraxda lagu taagay waxa kale oo jiray dad gawaari lagaga soo daadgureeyay tuulooyinka oo la keenay degmada Dooboweyn si ay u soo dhaweeyaan madaxweynaha Mustafa Cagjar soo dhaweyn aysan waliba iyagu aysan raali ka ahayn dadka laga soo kaxeeyay tuulooyinka oo danahoodii laga soo waday ayaa la arkayay sawirro la soo bandhigay iyaga oo gawaari lagaga soo daabulayo isla markaasina ciidamo lagu fasaxay oo gawaaridaasi lagu soo gurayo dhammaan xisbiyadii mucaaradka oo ay hogaaminayaan ururka ONLF oo muddo dheer u soo dagaalamayay dadka Soomaali galbeed ayaa isaga hadhay doorashooyinku sheegta deegaanka Soomaalida la filayo inay ka dhacaan maalmaha soo socda waxaana haatan ku soo hadhay oo kaliya xisbiga EPP ee madaxweyne Mustafa oo ka tirsan yahay oo aysan jirin cid gabi ahaanba la tartamaysa mucaaradka ayaa ku eedeeyay dowladda deegaanka Soomaalidu inay musuqeen ama musuqmaasuqeen doorashooyinkii sidaasi ayayna sheegeen in ay uga hadheen maadaama xukuumadda deegaanka Soomaalidu ay dhacday kaarar badan oo doorashada iyadoo xukuumadda Cagjar ay u diiday kaararkii codbixinta muwaadiniintii xaq u lahayd halka ay siiyeen oo kaliya dadka ay iyagu soo xusheen ama xisbigooda kaliya ka sharaxan waxaana la sheegay in talaabadaasi ay ka biyadiideen xisbiyada mucaaradka oo doorasho xor iyo xalaal filayay laakiin aysan noqonin waxaana haatan kaliya ka tartami doona doorashooyinkaasi xisbiga talada haya ee EPP oo la filayo in isagu isku caana shubo dhanka iyo dagaaladii ka holcayay waqooyiga dalka Ethiopia hadii aynu aadnana dowladda Eritrea ayaa ka soo jawaabday cunaqabataynta Mareykanku uu shaaciyay in ay saari doonaan dalkaasi Ethiopia iyo Eritrea waxayna sheegeen in ay qabsan doonaan magaalada madaxda gobolkaasi Maqale marka uu dhamaado xilli roobaadkan haatan lagu jiro Eritrea ayaa ku goodiday in caasimada Tigreeg ee Maqale ay qabsan doonaan soona aftari doonaan xogaga TPLF si kama dambaysa qorshahaasina waxay sheegeen in xilli roobaadka kadib
ay si toos u bilaabi doonaan oo aysan joojin doonin cunaqabatayn kasta oo Mareykanku uu kusoo rogo dalkaasi Eritrea iyo Ethiopia. waa markii koowaad ee dowladda Eritrea ay si publiga u sheeganayso in gudaha Ethiopia ay ka dhex dagaalamayso waliba qaybo kamid ah Ethiopia ay rabto in ay qabsato iyadoo ku goodinaysa in si kama dambaysa ay usoo burburin doonaan xoogaga TPLF-ta. Mareykanka ayaa cunaqabatayn kusoo rogay madaxda ugu sareysa ee Ethiopia iyo Eritrea iyagoo ku eedeeyay inay ka geysteen aan idhaahdee gobolada waqooyiga dalka Ethiopia gobol-falyo ka dhan ah bini'aadanimada oo ka baxsan xuquuqda insaanka halkaasi oo laga geystay gobolkaasi Tigreega. TPLF-tuna waxay sheegeen in ay dagaaladii ay kaga jireen gobolkaasi Amxaarada ay guula ka gaareen isla markaasina ay gacanta ku dhigeen deegaanka Wareebo. dagaalo adagina ay weli ka soconayaan gudaha deegaanka Amxaarada isla markaasina ay horumar ka sameynayaan. dagaalada ka soconaya koonfurta Wola ayaa sii cuslaaday inta badan oo koonfurta Wola ayaa dagaalku ka socda labada dhinac ayaana kala sheeganaya guulo ay kala gaareen iyadoo aan la xaqiijin karin maadaama dhulka lagu dagaalamayo uu yahay mid buura ah oo aan isgaarsiintuna ka suuroobaynin. deegaanka Wareebo ay xoogaga TPLF-tu sheegayaan inay la wareegeen si buuxdan ay u maamulayaan oo ay gacanta ku dhigeen sida ilawareedyo ku sugan deegaanadaasi ku dhow deegaankaasi ay xaqiijinayaan. dhanka kalena waxay dagaalo la isku hoobtay ay ka socdaan magaalada lagu magacaabo Meket oo u dhaxaysa Gasheena iyo sidoo kale Dabrazebet oo ilaa iyo deegaanka lagu magacaabo Giyenta ayaa la sheegay in dagaalo adag ay weli ka socdaan. ciidamada dowladda ayaa guulo sheeganaya in ay ka gaareen deegaankaasi Giyet oo ay jabiyeen ciidamadii TPLF-ta ee ka dagaalamayay. ugu dambeyntiina Mareykanka ayaa shuruud ku xidhay cunaqabataynta uu kusoo rogay madaxda ugu sareysa dalkaasi Ethiopia iyo sidoo kale Eritrea. Mareykanka ayaa sheegaya in uusan cunaqabatayn dheeraad kusoo rogaynin Ethiopia haddii ay labada dhinac joojiyaan dagaalka isla markaasina bilaabaan wada xaajood xal loogu raadinayo arrimaha ka taagan dalkaasi Ethiopia. xogayaha arrimaha gudaha ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa sheegaya in loo baahan yahay in wada hadalku ay si degdeg u bilowdaan iyadoo aan meesha la keenaynin wax shuruudo ah oo hordhaca oo lagu xidhayo wada hadalladaasi iyo miiskaasi la isugu imanayo. goor sii horeysayna madaxweyne Biden ayaa saxiixay amar sare oo suurta gelinaya in Mareykanku uu tallaabooyin dheeri ah uu ka qaadi doono dowladdaasi Ethiopia iyo Eritrea iyo sidoo kale TPLF iyo waliba dowlad deegaankaasi Amxaarada. xaaladda ayaad moodaa in Mareykanku haatan uu culays hayda saarayo ciidamada kala duwan ayaana dagaalku kula jira kooxda TPLF-ta 10 bilood ee la soo dhaafay kaasi oo 100,000 oo qof ay ku dhinteen isla markaasina la sheegay inay malaayiin kale ay ku barakaceen dagaalada ka soconaya waqooyiga dalkaasi Ethiopia. guud ahaan daawadayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynaa qodob wareedkeenan inta aynu ku kulmi doono wararkeena dambe. baad Warreer Media iyo Guulada Lifle oo idinkaga sii tagaya. Assalaamu calaykum ورحمة الله تعالى وبركاته.